kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhowaada barnaamij aan ku falaqaynayno marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray nidaamka maamulka dawada. waxaa barnaamijkan aan su-aalo ku weydiinayaa khabiir sanado badan kusoo dhex jiray mihnada caafimaadka. waa doctor cabdilaahi axmed maxamed oo ku magac dheer cabdilaahi qudus. ugu horeyn doctor, waxaan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka. la socodka iyo ilaalinta nidaamka dawooyinka waxa uu door muhiima ka ciyaaraa caafimaadka dadweynaha iyadoo la hubinayo helitaanka dawo tayo leh iyo badqabka dawooyinka. 1991kii markii Somaliland dib ula soo noqotay gobonnimadii ka luntay 1960kii waxaa dib loo howlgeliyay kaabayaasha muhiimka ah. caqabado dhaqaalena xilligaas iyagoo ay ku gadaaman yihiin oo ay jireen. su-aashu waxay tahay soo dejinta dawada goormaa la bilaabay ama iyay ahaayeen ciddii ugu horreysay ee soo dejisa dawada. su-aasha waxaan weydiinayaa doctor cabdilaahi. waad mahadsantahay wariye xamse. horta wadanka markaaynu kusoo noqonnay 1991kii step by step baa loo soo galay, in yar baa loo soo galay. dadku mar keliya soomay wada gelin. okay, marka infact anigu ahaan gaar ahaan waxaan ka shaqaynayay waqtiga refuge campkii dulcad oo aan dadka ku daweynaynay. kadib dadkii ugu horreeyey ayaan ka mid ahaa ee soo galay markaa wadanka. marka waqtigaa ma u jirin markaa wax ma garanaysaa daawooyin may oolin dalka, oo dalka gebigiisu waa iska burbur buu ahaa. nidaam dawladi ma u jirin, muxuu ahaa wax private iyo wax governmental midna ma ay jirin. markaasunba aasaasku u imanayay moogta. marka waxaa asaasantay horta wasaaraddu sideeday u asaasantay, oo masalan waxaa wasiir baa la doortay caafimaad, doctor Saleebaan buu ahaa. wasiirkii ugu horreeyay xilligaa la doortay inaan doctor Saleebaan cabdi guuleed ayuu ahaa, iyo agaasimaha axmed cabdi jaamac oo isaguna muxuu ahaa agaasimo guud ahaa. marka wadanka markii lasoo galay wax dawiye horta xagga private ahaan iyo government ahaan midna ma ay oolin. waxaan ahayn qaybihii markaa xagga private-ka, maadaama aan awalla private ku dhex jiray, inaan private u baydho ayay noqotay xaaladdu. marka waxaan diyaariyey muxuu ahaa xarun caafimaad oo dadka lagu daaweeyo. kadib ayaan sameynay xarunta caafimaad. dadku qaxootiba iska ahaayeen, wax lacaga kamaan qaadi jirin. muxuu ahaa qaxootigii oo kale aan u daweyn jiray si private ahaan oo ma garanaysaa caawina ayaanu tabarucaad aanu samayn jiray. laakiin problemku wuxuu ahaa wax daweeyaba may dhex oolin markaa idinkoo dawadiiba aan ogeyn inay wadanka taalo iyo in kale. klinikii ugu horreeyaan sameeyey. ayaad xarun caafimaad klinikadii ugu horreeya ayaan sameeyey. waay markaa markii dambe waxay noqotay in dee qofkii patientkii maxaa lagu daweynayaa horta. anagu tabarucaad baanu ahayn oo waxaanu dadkaan caawinaynay, waxaan su lahayn ma garanaysaa wax u support gareeya dadka private-ka. cusbitaalla mu jirin bade, cusbitaalka dawligii muu shaqaynayna. waxa weeye waxba may dhexoolin, alaabi may dhexoolin, qalab mau dhexoolin, ma garanaysaa. markaasun bay ahayd kabitaan lagu jiray moogta. dadkuna ay kasoo noqonayeen qaxootiga. waay marka dee may jirin wax dawo ahoo markaa wadanka dhex taalay. markaa seed ku bilowdeen? yaa bilaabay? waxaa jiray ciddii ninkii ugu horreeyay keenay wuxuu ahaa nin from India ka yimid, xaaji cabdi in la odhan jiray baan malaynayaa. wuxuu keenay nasiib wanaag hal container buu keenay, barbare ka soo dejiyey. halkii container buu Hargeysa keenay. halkii container baa markaa wixii cusbitaaladii iyo farmashiyadiiba uu ka iibiyey moogta. markaasaa sidaasay ku bilaabantay. ninkaasi muddo ilaa adigu sanadkii ugu horreeyey halkaa container ayaa, maadaama ay dadku yaraayeen, alla isticmaali jiray moogta. kaasi wuxuu ahaa nin India degan oo reer Soomaaliland, reer Hargeysa ah. containerkii markaa isagoo cilmi uma lahayn markaa dawada,
wuxuu alaab wuxuu ka soo buuxiyey dawo markaa uu dhex keenay markaa wixii looga baahnaa patientku u baahnaa ayaa kolba qofkii ma garanaysaa farmashi aqoonta u lahaa uu ka qaadanayay ama cusbitaalladu ay ka qaadanayeen xagga cusbitaalladana dee waxaa bilaabay masalan wasaaradda oo iyaku waxay ku bilaabeen hab dee ma garanaysaa ay mucaawimo weydiistaan hay'adaha caalamiga ahaa markii dambe adigu waxaa dhacay markii containerkaasi uu dhammaaday wax dawo oo la keenayay markaa ma ay jirin waddanku isku yaacay magaaladu waxba ma jirin muxuu ahaa patientka ama kuwa qaliinada efan loo sameeyo cusbitaallada loogu sameeyo ma ay jirin iska daa wax kale ee blood bagiska waa baagagan lagu shubo dhiigga lagu shubo markaa masalan dumarka umulaya oo kale lama helayn baagag lagu shubo catheters ma hay jirin infusions kale oo ma garanaysaa dee la siiyaa ma ay jirin waxaan kale iska supplementary bay ahaayeen oo dawooyinkan kale masalan dee xanuunadan kale caadiga ahee masalan outpatientka lagu daweeyey yaryar ee fududi waxaaba iska ahayd wax iska fudud baaba ahayd laakiin patientkii waardka yaalay ama kii seriouska ahaa ama kii baahida fara badan u qabay dawada ma ay jirin markii haddaba aad baahida aragteen okay maya markay waqtigaa ay jirta ay uu ninkaasi keenay kala go'day waxaa isaguna nin Kenya degan diyaarad buu bilaabay uu Hargeysa ka bilaabay diyaaradda markaa alaab ku keeni jiray kadib wuxuu sameeyey inuu dawo isna soo raro dawooyinka isagoo laftiisu muu garanayn laakiin waxaa dawooyin baa loo baahan yahay baa la yidhi bas markaa waa la iska soo raray ma ogta markaa haddana waxaa bilaabmay in farmashiyadii iyo muxuu ahaa cusbitaalladii ay wixii ay uga baahdaan ay ka qaataan markaa waxaa lunsanaa ma garanaysaa baahida beesha muxuu ahaa dawada iyo waxa la keenayay isku balanced ma ahayn ma ogta waayo wuxuu dadkan iska baac mushtari buu ahaa way iska keenayeen alaabta ma ogta kadib markay heerkaa marayso horta anigu waxaan ka fikiray ma garanaysaa in hab cilmiyeysan lagu soo dejiyo wixii oo cilmi ahaan lagu soo dejiyo oo waxyaabaha loo baahan yahay blood bagiskan iyo urine bagiskan iyo ma garanaysaa kuwii asthmatica iyo waxyaabaha infusionska iyo waxyaabaha importantka ah la soo dejiyo anigu waxaan markaa maadaama aan clinic yar lahaa waxaan ka fikiray markii Kenya laga keenayba in barnaamijkan aan soo dhex galo oo aan dawooyinka maadaama aan dadkan keenaya aan aqoon badan lahayn inaan soo dhex galo oo baahidan imaka loo qabo muxuu ahaa patientku uu qabo muxuu ahaa dawooyinkii weliba especially alaabtii kale aan dawada ahayn qalabadii kale waxyaabihii kale dhib ahaa waxyaabihii qalliinka lagu sameynayay waxyaabihii all this waxaa soo dhami ma garanaysaa problem bay ahayd oo lama hayn moogta marka anigoo ka fikiraya ayaa nin aan saaxiib nahay aan u sheegay aan ku doonay waxa barnaamijkaas aan doonayaa inaan sameeyo aan gallo ka waran marka wuxuu sheegay nin Pakistan ka yimid oo saaxiib yihiin ninkiiba markaa aan saaragnay waxa buu markaa ii sheegay in uu hal buug oo dawooyinkii muxuu ahaa warshadii ay soo saarisay Pakistan uu sido okay baan ku yidhi camp baan ku yidhi waan ka qaaday markaa baahidii loo baahnaa ayaan ka soo dhex saaray buuggii ma ogta oo buugga waxaa dawooyinka ay Pakistan samayso oo dhan ayaa ku qoran ma ogta markaa dawooyinkii loo baahnaa ayaan ka soo dhex saaray markaa waxay ii suurto gashay in aan isku dabaqo equivalent aan ma garanaysaa wixii loo baahnaa ay patientku u baahnaayeen in aan buuggii ka soo dhex saaro waxaan u sheegay ninkii ay saaxiibka ahaayeen ninkaa barnaamijkan aan diyaarin aan ku yidhi okay buu yidhi sidii baan ku diyaarinay sidii baan ku gallay waxaanu keennay markaa dawooyin muxuu ahaa muhiima oo dadku ay aada ugu baahan yihiin maogta oo aan dawooyinkan ma garanaysaa lagu isticmaalo oon farmashiyada aan ahayn qaarna farmashiyada jira qaarna waxaa lagu jira cusbitaallada jira maogtay oo infusionist oo dhan waxyaabahan oo dhan dee waxaa lagu isticmaalaa qof patient bukaa la siiyaayo jiifa maogta marka kuwaan u badinay waxay ahayd patientkii tabcaanka ahaa dawooyinkoodii maogta sidii baan ku keennay sidii baan ku bilownay
sidii baan ay ku socotay markaa sharaa'ic kalena ay bilaabeen moogta inay dawooyinka inay keenaan dawooyinka keenaan. nidaamka dawooyinka wuxuu ka kooban yahay dhowr qaybood oo ay ku jiraan sharciyeynta dawada, kaydinta iyo la socodka dawooyinka. dawladdu maxay arrinkaa kala socotay ama wax roolama ku lahayd wallaahi xilligaa aad soo horta, dejin in fact, jirteen dawada? waqtiga intii hore may jirin wax ma garanaysaa isku xidhi ya ama xidhiidhna ka dhexeeyay dawladda Ah, iyo private sectorka ama wholesalerada. Wholesaleradu way bateen, waxaa qaar fara badan baa soo galay, way. markaa dawooyin fara badan baa la keenay, dawooyin loo baahan yahay, dawooyin aan loo baahnaynba, oo waxaa lagu saleynaya un waxaan ma soconayaan mise ma soconayaan. Qaarna de si cilmiyeysan bay kusoo markaa dadka marka- barefadka ganacsada barefadku ayaa unbaa qaarkoodba haa qaarkoodna way dekenayeen caadi, qaarkan waxay ku saleynayeen maogti baahida maogta baahida. haa. marka isku xidh waxaa keenay nin ma garanaysaa dhakhtar ahaa oo pharmacist pharmacologist buu ahaa I think iyo pharmacist wuxuu ahaa adigu master buu ahaa Kenyaati buu ahaa maogta way. ninkaasaa yimid maogtay xilimu ninkaas adigu 95 kii meelahaas ayaad 96 meelaha 95 idinkoo wadanida soo annagoo wadna iibinta haa soo haa iibinta dawooyinka. dawooyinkii haa way. annagoo wadna ayuu yimid ninkaasi. Ay. marka pharmacist master uu ahaa oo dhakhtara Kenya ka yimid, hay-ad baa soo kaxaysay. Ay, marka waxay yidhaahdeen wuxuu yidhi hay-ad baa waday markaa Way. marka waxay yidhaahdeen waa in la aasaasaa Somaliland Drug Association ya Somalilandtii muxuu ahaa Somaliland privatekii sectorkii ah, iyo governmental sectorkii guddi isku xidha waa in la sameeyaa maogta way. ya. marka wholesalerradii baa la soo ururiyey, farmashiyadii dadkii aqoonta lahaa baa lasoo ururiyey, waxaa lasoo ururiyey wasaaraddii baa cid laga keenay oo wasaaradda waxaa kaga jiray muxuu ahaa nin farmashiis ahaa iyo Ah. iyo nin pharmacologist ahaa muxuu ahaa xandule la odhan jiray. ka kalena adigu ma xusuusto marka nin kale oo isaguna pharmacologist oo qaybtan saameynta dawada Ah, ka mas-uul ahaa muxuu ahaa markaa ku jiray wasaaradda. way. kuwii baa lasoo ururiyey, marka wixii baa laisu keenay. markaa jaamacadda Hargeysa ayuu shir ku qabtay, halkii baanu shir ku gallay, halkii baa lagu falanqeeyey wax. markaa waxaa la doortay guddi baa la doortay. guddi isku xidhaysa Guddidani waxay isku dawladda iyo xidhaysaa dawladda, barefadka, ganacsada barefadka. waxa weeye waxay ka koobantahay dawladdii, governmentalkii iyo private sector waa guddi ka kooban marka ganacsatada dawooyinka soo dejiya iyo dawladda. iyo dawladdii haa way. haa qaybta muxuu ahaa markaa way. Maadaama- waad shirteen marka. marka haa isagaa shirka qabtay, meeting u sameeyey, waa waxyaaba badan baa la falanqeeyey. waxaa la yidhi private sectorka wholesalerada iyo farmashiyada laba qof ha laga soo doorto, mid qaybtan ma garanaysaa galbeedka xukuma iyo mid qaybta bariga galbeedka Somaliland iyo bariga galbeedka Somaliland. Somaliland from Berbera Mm. from Sheikh to muxuu ahaa to Borame Hay. yeah iyo from Sheikh ilaa ilaa iyo Ceergaabo. Ceergaabo. haa. way. marka laba qof baa laga soo doortay. aniga waxaa laga doortay qaybtan sectorkan galbeedka. muxuu ahaa galbeedka inaan representative aan u noqdo ya. qaybtan galbeedkana waxaa loo doortay, qaybta barigana waxaa loo doortay nin imanka meesha wholesalerada haysta oon saaxiib ahayn, Yuusuf Ducaale la yidhaahdo, ayaa isagana qaybta bariga loo doortay. marka waxaa laga soo saaray wasaaraddii muxuu ahaa cusbitaaladii dawliga ahaa, wasaaraddii rag kale iyakana laga soo saaray ya. way. waxaa ku jiray qayb iyakuna ah muxuu ahaa xagga shaybaarada iyakana laga soo saaray ya, way. shaybaarada dawliga ah. adigu 10 qof ayaa la ururiyey. 10kaa qof markaa waxaa la yidhi ha sameeyaan drug muxuu ahaa iyo dhakhtarkii baa waxaan hagayaa anaku dee aqoon umalihin waxaan moogtay ya in Somaliland Drug Association sida loo sameeyo in la sameeyo. marka isagii baa wixii diyaarinaya. anaku waxaan samaynaynaa un inaanu ma garanaysaa dee jeegarayno waxaan okay sidan ma tahay caadi ma tahay oo laga wada hadlo. kadib sidii baa Somaliland Drug Association lagu sameeyey. barnaamijkii lagu sameeyey. waqtigan waxaa haystay Dr. Saleebaan. ujeedadu maxay ahayd marka? ujeedadu waxay ahayd
in la ilaaliyo quality control number 1 quality tayada dawada in la ilaaliyo. ha number 2 in la ilaaliyo bukaanada dawooyinka ay qaadanayaan loo baahan yahay ya number 3 habka ganacsiga ee dawada ee xorta ah ya iyadana in la ilaaliyo oo taana aan laga guurin. marka waxaa loo kala saaray dhowr inay wasaaraddu ay xukunto muxuu ahaa procedure-kii ay samayso dariiqii habraaci in la sameeyo habraaci ay samayso dawada lagu maamulayay iyadoo adeegsanaysa markaa guddidan adeegsanaysa ha markii aad samayseen guddidii ka koobnayd dawladda iyo ganacsatada sax waxyaabihii ugu horreeyay aad qabateen weliba xagga sharciga koley ganacsadoo kale waxay u baahan inay dee nidaam sharci ay dawada kusoo dejiyaan. marka halkeed wax ka bilowdeen? waxaan ka bilownay guddidii waxay samaysay in the registration la sameeyo in la diiwaan geliyo ganacsatada dawada keenaysa oo iyadii wasaaraddii la kaashanaysa la sameeyo liisan ay dawladdu siiso liisan ma garanaysaa ay kusoo dejin karaan wasiirka siiyo weliba. marka wasaaradda caafimaadka liisanka bixinaysa wasaaradda caafimaadka bixin jirtay ya annaguna waan ka warhaynay markaa wuxuu soo geli jireen ninka muxuu ahaa shirkadaasi inay register tahay oo ay diiwaan gashan tahay moogta oo ay ka diiwaan gashan tahay muxuu ahaa wasaaraddii caafimaadka sidaasaa dawooyinka markaa lagu keeni jiray moogta. maadaamaad guddida madax ka ahayd oo aad ku jirtay oo qaybta galbeedka aad haysatay dawo keenista umada dawada ka soo qaadan jirteen ka soo iibgeyn jirteen iyo sababaad ku xulan jirteen maxay ahayd? horta annagu waa su'aal wanaagsan xamse muxuu ahaa horta markaan bilownay Pakistan markii horena Kenya la bilaabay India la bilaabay anigu kulley waxaan sameeyay ma ogtay research badan baan sameeyay dawooyin fara badan oo ma garanaysaa ay dadku u baahan yihiin around 30% inta Pakistan laga keenayay maadaama aan buug haysto aniga ayaa soo ma garanaysaa qorayay oo soo gelinayay wadanka ma ogtay dawooyinka loo baahan yahay maadaama guddida madax ka ahayd oo aad ku jirtay oo qaybta galbeedka aad haysatay dawo keenista umada dawada ka soo qaadan jirteen ka soo iibgeyn jirteen iyo sababaad ku xulan jirteen maxay ahayd? horta annagu waa su'aal wanaagsan xamse muxuu ahaa horta markaan bilownay Pakistan markii horena Kenya la bilaabay India la bilaabay anigu kulley waxaan sameeyay ma ogtay research badan baan sameeyay. Masar baad u guurteen? marka Masar baa antibiotic xagga antibiotic aan u leexanay ma ogtay vitaminskiina maadaama ay Pakistan ka way ka quality fiicnayd aad bay uga quality fiicnayd xagga vitamin ahaan iyo dawooyinka qufaca qaarkoodba aad bay uga wanaagsanayd iyo kan ka keeni jiray ilaa imakana iyo ka qaar waa laga keenaa vitaminska oo dhan waa laga keenaa dawooyinkaanu berigaa bilownay intoodii badnayd waa la keenaa ma ogtay dawooyin fara badan oo beeshanada in beeshanka u baahnaana way jireen oo cusbitaalladu ay u baahnaayeen kuwaasna waan ku daray sida kuwa dhaymaha aan ku daray kuwa masalan antiseptigeedaan ku daray kuwa waxyaabahan lagu qofka nabarada lagu daweeyay ma ogtay oo aan markaa hayn dee oo aanay markaa cusbitaalladu hayn ma ogtay ayodhinadii detoliskii antiseptikii muxuu ahaa all bandageski plasterskii markaan waxaa keenay Pakistan ka keenay qaarkood inta badan masalan cudbigoo kale way ku fiican tahay Pakistan oo bandage-oo kale wixii bandage la yidhahdo dhan all this way ku fiican tahay waanay ku jaban tahay waanay kaga fiican tahay wadamadan kale oo dhan waayo waxa ku badan cudbigii baa ku badan ma ogtay waxaan ogaaday in maadaama uu cudbigu ku badan yahay that's why ay wax soo saarka cudbiga wax soo saarka cudbiga plaster ahaan oo kale way ku xun tahay oo plaster marka laga keeno Pakistan plasterkiisu si fiican wax uma qabto halka wadamada kale misalan Masar oo kale markii dambe waxaan bilaabay inaan qad kale helo Urdun helo Jordan waxa weeye high quality weeye dawadeedu laakiin waxa weeye waa aad bay qaali tahay waa euro waxa weeye American tape moogta halka sharoobeede misalan muxuu ahaa Urdun lagu sameeyo waxay tahay ilaa $4 meelaha $4 sharoobada yar carruurta la siinaya
haddii lasoo iibiyo ilaa $6 meelaha way noqonaysaa dee oo ay qof shirkadii markay macaash saarto ilaa $6 soo qaadistii $1 ay saarto ilaa $6 way noqonaysaa laakiin aad bay quality dawo tayo leh fiicana laakiin maxaa jiray dadkii masalan masaakiinta ahaa oo dhami ya ma iibsan karayaan in yar yar baa iibsan karta ma waqti iibsan Jordan ka keeni jirteen markaa dawada Jordan ka keeni jirtay imakadan shirkado yar baa ka keena laakiin waxa laga keenaa items aad u yar baa laga keenaa ma jiraan wadamo kale oo markaa laga keeno dawada dawooyinka horta waxaa jira wadamadan imika masalan muxuu ahaa Bangladesh Thailand wadamo badan baa furmay ma waqti ya waxaa jira dawooyin European ah oo sharaa'ig European imika shirkadihii European-ka ah ee awal tirtiray Bayer oo kale ahaa Merck ahaa ya Sanofi ahaa shirkadahaas waa shirkadaha aad u waaweyn ee European-ka ah ya kuwa markaa wadamada qaarkood misalan Masar oo kale Pakistan India even Kenya waxay ku leeyihiin centers bay ku leeyihiin warshadihii bay la shiraakoobeen ma waqti warshadahoodii waayo haddii ay keenaan ma keeni karayaan horta ma waqti dawooyinka European-ka Merck Bayer all these kompaniyada aad u waaweyn halkii ay ka keeni lahaayeen soo dejin lahaayeen dawadii ay $10 ama $12 halkii sharaba ay ku gaadhi lahayd waxay sameeyeen nidaam ah in ay warshadahoodii ya ay ku dhex sameeyaan oo magaciina uu noqdo Bayer oo kale ya misalan Pakistan oo kale waxaa jiray dawo la yiraahdo Supradin oo ka keeni jiray Bayer baa sameeyay company-ga Bayer baa sameeya oo Supradin oo joogsatay markaa laakiin dawo vitamin aad u wanaagsan bay ahayd waana dawo European magacii Europe bay leedahay laakiin waxa weeye markaa sharaa'iga waaweyn waxay ka dhex sameeyeen magaranaysaa wadamadii dawooyinka soo saarayay si ay u helaan marketna u helaan una helaan dadkoodina ay u helaan dawo jaban all this ma aha dawo walba xamsi horta dawo kasta ma sameeyaan dawooyinka dalkooda lagu sameeyo waa ay isticmaalaan dalalka badankooda misalan Ethiopia-dan inagu dhow dawooyinka ay iyadu soo saarto Kenya dawooyinka soo saarto ay samaysaa ayay siisaa dadkeeda laakiin in yar baa la soo dejiyaa in yar baa warshada gudaheeda lagu sameeyaa inta yarna kompaniyada intii wixii aan laga maarmayn dawooyinka aan laga maarmayn oo kale ayay ka soo qaataan chemical ahaan marka waxay ku dhex sameeyaan warshadihii dalka ay ku dhex sameeyaan sidee dawada Europe ay qaali ku noqotay marka dawada Europe maadaama ay quality-geedu uu fiican yahay see dadkeena loogu heli karaa dawo dhiganta dawada Europe qiimaheeduna jaban yahay tayadiina u dhiganta dawada Europe sidee loo keeni karaa ama loo heli karaa kaliya tama oran karo tay ahaan ayay kaga fiican ayay ku qaali noqotay dawooyinka Europe sidaynu marka as a general markaynu eegno nolosheeda kale oo dhan baa wada qaaliya oo lama mid ahaa ma garanaysaa Asia lama mid ahaa Africa lama mid ahaa oo quality ahaana waa okay waxaan ila jaan qaadaysaa maadaama uu wadankii uu wada qaali yahay waxiisu taasay la jaan qaadaysaa ma waqti su'aashaada haddaan ku soo noqdo waxa weeye horta dalalka warshadaha leh horta inaku warshad ma lihin misalan berigii Soomaaliya oo kale haddaynu eegno waa la keeni jiray dawooyin fara badan oo European la keeni jiray dawooyinkaas waxay u kala bixi jireen dawooyin hospital use iyo dawooyin loogu talagalay private-ka oo asbiima ayaa keeni jirtay dawooyinka dawooyinka markaa kuwa private-ka kuwa farmashiyada waxaa loo qiimin jiray dawooyin strips meedhana ayaa laga iibin jiray strip oo box leh oo ganacsi loogu talagalay kanina moora halka cusbitaalada ay usage-keedu ahaa muxuu ahaa containers ma garanaysaa marka kanino ku jira 1,000 mid ama 500 mid caagad ku jirta oo markaa patient oo miismiisa loo miisayo that means inuu price-kii uu hooseeyo yaraado ayay ugu talagaleen ma ogta marka laakiin labada dawo ma isku mid bay ahaan jireen isku quality isku company Germany waa soo saaraya waxa soo saaraya British muxuu ahaa Ingiriiska soo saaraya kompaniyada isbitaalada loogu talagalay iyadoo Stravinsky waxaan kartoonkii un baa laga daayo waxa lagu riday un containers hay'adaha laftoodu waxay keeni jireen muxuu qaxootiyada IDA wax la yiraahdo IDA
international drug association oo international ahaa ya kuwaasna markaa waxay keeni jireen iyakuna waxay u keeni jireen lama iibin jirin oo waxaa la keensin jiray qaxootiyada iyo waxyaabaha jiray sharabooyinka plastic buu ahaa caagadu ahaa halkan muxuu ahaa farmashiyada kuwa lagu iibiya ay quraaro tahay ya inkastoo iminka qaarkood plastic laga soo dhigay oo plastickaasi uu wixii la import gareynaya misalan haddii lagu soo qaado by air oo kale marka maadaama lagu soo qaadayo diyaarad waa in plastic shirkadda ay ka dhigtaa oo sidaa lagu keenaa si uu qiimihii u jabnaado miisaankii uu fududaado moogta marka innaka haddii aynu sinaado misalan sidee loo heli karaa dawo tayo leh ya waxa weeye horta in research badan la sameeyo ya research badan waa la hayaa waxa weeye waana la heli karaa ma garanaysaa hab aada u wanaagsan oo lagu maareeyo iyadoon dawooyinka yurube qaaliga ah sida kuwanba masalan dalalkanba waxay ka fikireen inay dadkoodan aanay direct ugu keenin moogta dawadii laakiin muxuu ahaa warshada dhexdeedii ku dhex sameeyaan ya marka inaku warshad ma lihin laakiin waxa weeye hab kalaa jira oo la isticmaali karo oo loo keeni loo dooran karo dawooyinka tayada leh see loo dooran karo horta dadkan qofkan loo shaqeynaya waayo qofkan loo shaqeynaya ama wasaarad ha noqoto ama muxuu ahaa private sector ha noqdo ama wholesaler ha noqdo ama shaqaalaha staafka caafimaadka ha noqdo waa bukaanka waa qofka buka moogta xamso qofka buka marka waa inuu helaa dawo tayo leh oo fiican waxna u tarta xanuunkiisii lowsiisa xanuunkiisii daaweysa marka waxyaabo badan baa jira waxaa jira masalan haddaad u fiirsatid farmashiyada waxaa u imanaya qof baa u imanaya ya qofkaas u imanaya wuxuu odhanaya waxaad siisaa diclofenac tablet kaniinka garaaca okay kaniinka garaaca waxaa masalan 50 miligram 100 miligram ayuu leeyahay halka dhakhtarku haddii uu qoro ama ninkan farmashiiska aqoon buu leeyahay ya haddii aan isagoo haddii aan bila aqoona maahee ninka farmashiga iibinaya aqoon buu leeyahay waa farmashiis aqoon buu u leeyahay dawadii marka halku ka odhan lahaa muxuu ahaa dawada isi diclofenka maxaad xanuunka waxa iga taraya garaac baa haya ya hargab baa haya madax xanuun baa haya laakiin dadkeenu ma isticmaalaan waxa weeye markaa maxaa imanaya business taybkii baa imanaya dhinacin ganacsiga loo kacaya ya oo dawadii soconaysay oo dawadii uu farmashiga laga iibsanayay ayuu farmashiga keenaya waxyaabaha keenaya leed markaa waxyaabaha keenaya in ganacsatadiina kolba waxa loo baahan yahay in la hago barnaamijka dawada waxyaabaha qaladaadka keenaya ayay kamid tahay moogta ya marka waa la habeyn karaa quality waa loo samayn karaa waayo dalalka qaarkood waxay soo saaraan lisan bay ka sameeyaan moogta waxaa imanka Jordan oo kale markaan ka keeni jiray Masar markaan ka keeni jiray shahaadad waxay certificate ah quality control ay iyagu soo hubiyeen dalkooda ku soo hubiyeen oo arrimaha dibadda ka soo baxday ya wasaaradda arrimaha dibadda ka soo baxday wasaaradda caafimaadkana soo martay ya ay soo diri jireen dhawaan wasaaradda caafimaadku waxay sheegtay in aanay ka warhaynin dawooyinka wadanka soo gala tayadooda arrinta horta sidoo aragta wallahi horta hadduu agaasimu sidaa yidhi waa waxa weeye waa yar problem moogtay ya waxa weeye kolley waa in beriga aanu anaku ku dhex jirray waxa weeye xidhiidh baan ka dhexeeyey horseelarada iyo wasaaraddaba ma jirti markaa in dawladdu ka wareysay dawooyinka aad soo iibinaysaan waa ay ka wareysay waayo waxa weeye waxaa looga warhaynayaa prescription ba laguma samayn karo dawo farmashi laguma iibin karo ya haddii aanay wasaaraddu ka liisan baaba la siiyey liisanka marka laga imaado liisanka marka la siiyo dawooyinka soo gelaya waddanka soo gelaya ya door ma ku lahayd oo ma ka wareysay ha hore waxaad u sheegtay in xilligii Soomaaliya jiri jirtay shirkad la oran jiray Asbima waxay qaabilsaneyd inay dawooyinka dalka keento shirkadaas horta ma dawli baa ahayd mise shirkadaasi waxa private baa lahaa shirkadaasi waxay shirkad governmental dawliga dawladda hoos iman jirtay waxaana ay ka iibin jirtay dawooyinka intooda badan farmashiyada ka iibin jirtay dawadaasna dawo Yurub oo waxay ahayd
muxuu ahaa misal nimanka marka maamulkeeda iyo ma waxeedoo dhan soo iibinta iyo waxa oo dhan ba gacanta iyada ku haysa eegno waxaad ogaanaysay in imanka qiimaha marka dawooyinka la keeni jiray aynu dib u eegno u raacno waxaad ogaanaysaa in ay ka helaysay mucaawimo ma garanaysaa dalalka keenaya oo dalalka keenaya ay usoo iibin jireen oo ay lacagta badh laga dayn jiray ya waayo dawadaasi dawo yar bay ahayd hal sharoobo imanka ay bareemo la odhan jiro muxuu ahaa ayurvedic medicine bay ahayd oo u wanaagsaneyd johnska iyo beerka iyo waxyaabaha oo talyaani ah ya muxuu ahaa Switzerland bay ahayd baan malaynaya qiimaheedu imanka waxay joogtaa hadda $14 £14 meelaha marka beriga marka la keenayay macnihii dee waxaa la siinayay ilaa $2 kama badnayn iyo badh meelaha marka dawladda bixinaysa ayaa ama dawladda baa kabi jirtay that's why ay u samaysay Soomaaliya si ay uga maarato dawooyinka faraha badan ee wadanka lacagta ka galaya dawladda maxaa warshadii Soomaaliya xilligii dambe inta badan dawooyin badan baa ay samayn jirtay ma ogtay oo dawooyinkuna markaa problem bay ahayd waxaa jiray waxaad tiri xilligii dambe way ka maarantay dawooyinkii ay dibadda ka keeni jirtay intoodii badnayd marka sidee maxay ku bedeshay waxay ku bedeshay dawooyin ay Soomaaliya lagu sameeyo warshada Soomaaliya lagu sameeyo Soomaaliya baa lagu sameyn jiray vitamins oo dhan antibiotics powders powderska si hadaba loo helo dawo tayo leh oo qiimaheeduna yahay qiimo hoose dadkuna ay wada iibsan karaan ma in warshad la keeno wadanka ma in qorshayaal kale la sameeyaa maxaa tala ahaan aad soo jeedin lahayd xamsi waa su'aal fiican horta ma odhan karo dawooyinkan wadamadan masalan ilaa 20 ama 30 wadan baa laga yaabaa in laga keeno dawooyinka inta imaka wadanka Hargeysa Somaliland taala kama yarada 30 countries meelaha hadii la eego in 30 wadan laga kala keenay u badan wadamada Asianiska waxoogaa Turkiga wuxuu ahaa Masar Yemen wadamada Carabta experience baa la hayaa waxa la hayaa aqoon baa la hayaa even aqoonta waxa ka muhiimsan experience ka waayo way araga aqoontana leh misalan annaka markaanu Somaliland Drug Association aanu la sameynayay nin dhakhtar oo dhakhtar wax daweeyo maaha dadku wax isku qaldaan dhakhtarkii wax daweynayay waa pharmacist dhaktara ya oo master MD specialist ayaa barnaamijkan waday marka isagaan uga dambeynay waayo wax weeye isagii baa wixii aad u aqoon u leh ma waqti dawadii lafteedii khibradna u leh marka waxay u baahan tahay dadku wasaaraddu waxay u baahan tahay inay talooyin fara badan urursato ma waqti ya markaas dadka waa yaraga ee aqoonta u leh meel fara badan waa inay wax ka urursaa maxay problem ku keenaysaa hadii aad maxaad ka faa'iideysaa maxay problem ku keenaysaa maxaad ka helaysaa waxaan oo dhan waxa loo danaynayaa waa bukaankii ma waqti ya bukaankii markaa hadii inuu problemka uu nagu yimaado bukaankeenu hadii uu dawoobi waayo uu halkan ku bogsan waayo that means waxa way transferred way waa la gudbinayaa ma waqti way lama gudbinayo iyakiiba toos u gudbaya ma waqti oo Ethiopia tagayaan halkee dawo noogu dhow Ethiopia halkee dawo noogu dhow muxuu ahaa India maxaa dawooyinka laga keenay ayaa yaala ma waqti laakiin maxay naga fiican yihiin waxay naga fiican yihiin aqoontii dhakhtarnimadii iyo qalabkii iyo wixii oo dhan ayaa very high noqotay ma waqti daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaa barnaamijkii gaarka ahaa barnaamijka waxa aan su'aalo ku weydiinaynay khabiir in badan kasoo shaqeynayay mihnada caafimaadka waa Cabdilaahi Axmed Maxamed Cabdilaahi Qudus aad baad mahadsantahay